macalinku wuxuu sigday inuu noqdo rasuul oo kale marka macalinku wax dhaleela ma ahan bulshadana qayb muhiim ah ayuu kaga jiraa macalnimadan kuwa hadda idin hortaagan iyo kuwa aan hortaagnaan jiray kaliya ma ahan meel dheer ay macalnimada ka timaaday tusaale ahaan anaga diinta islaamka waxa la sheegaa qarnigii 7aad inay Afrika soo gashay markii ay dad reer Carbeed noo keeneen diinta islaamka dad noo sii xifdiyay oo noo hayay oo maxaa luqada carabiga iyo thaqaafada islaamiga noo sii keediyay oo nasiib baraayay dadkaasna door muhiim la ay ka qaateen 21 November 1974 ayaan loo asteeyay maalinta macalinka Soomaaliyeed sababay ku imaatana waxa jirtay 1971 dowladii kacaanka yiraahdo in dadka afka Soomaaliga la baro qori karaan inay akhrin karaan ayaa la bilaabay saadaradeed macallimiintu door muhiim la ay ka qayb qaateen oo ah in dadka wax la baro tusaalaan macallimiin waxa jira dadka baadiyaha degan xataa intay baadiyaha uga daba tageen mar walba guuraan la sii guuro si ay wax u baraan ugu dambeyn waxa jira macallimiin wadooyinka saboorada ijaasta dhigtay si qofka soo mar la yiraahdo wax ma qori kartaa wax ma akhri kartaa kiima yiraahdan halkaas lagu bar heerkaas waxbarashada soo gaartay marka dawladii markay aragtay macallimiintu sida da'da weyn ay uga qayb qaadanayaan ama waxbarashada u horumarinayaan dawladii kacaanka ayaa wuxuu u asteysay 21 Oktoobar 1974 maalinta macalinka Soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay macalinku waa ka daaweyn yahay hal maalin iyo wax ka badan anigu waxaan aaminsanahay in maalin walba maalinteeni tahay waxaan baawaal u haynaa dadkii diinta islaamka noo sii xifdiyay oo noo sii hayay oo madaaris noo sii furay oo halkaas noogu sii dhooray ilaa afka abna ay sii gaari doonto anagana hadii maxaa ahayd aan sii noolaana aan sii wadi doono jiilka naga dambeeyo imaanayana ee wiliba waxbarashadaas sii heli doonaan saadaradeed yaa waxa soo dhan xifdiyay waa macallin xadiis halkan laga aqriyaa Jerusalem dhahay oo ahayd qofka khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu qofka Qur'aanka bartay oo hadana dadka baraya intuu qayr badan marka macallimada leeleel maahan maadaama uu bartay oo hadana dadka sii barayo marka oraada afka ariga waano inta badan waxa lagu dhahaa naqo yaani mid wax barto ama mid bare laakiin aan naqanin mid saddexaad in badan iskuulada darbiyada ku qorantaa waan aragteen markan idinka aad u mahadsantiin inaad madashan quruxda badan imaataan si macallimiinta Soomaaliyeed kuwa hadda joogo idin hor joogo kuwa wax idin dhigo kuwa wax idin dhigin kuwa hore diinta noo soo xifdiyo oo soo gaarsiiyay inta aan ururka garaadmaal iyo ardaydiisa iskuulka garaadmaal aad u mahadsanyiin sida macallimiinta u maamuseen ee soo xilqaameen ee halkaan u imaadeen ee ugu hambalyeeyeen ee u bogaadiyeen arrinkaas aad aan u faraxsanahay waan in ka guddoonay bogoodinta aan noo soo jeediseen aad iyo aad ugu mahadsantiin cilmigan waa sii wada doonaa macallin iyo arday baadaan nahay waxaan leenahay rabbana aatina fi dunya hasana wa fil aakhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وحرجنا علمك معلمي أرضى بأنه نقضي من نافع إلى سبحانه وتعالى كبرينا أذكرنا آذى أمها سنتين أنا جانا إنا هلكان إيمانه آذى أمفر حسنا مدشان فرد بدن معروفة يريد إني قوان صدان إني معلمين طول وقت لقاطان وفرحد آذى هو نكسن مركب حيث لا وحكسور بقويننا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.